ورحمة الله وبركاته. وعفرحت ورهينا سيدة وناكسن maanta ra'iisul wasaaraha iyo ragga la socday lagu soo dhaweeyay degmada Dayniile oo ah degmo ballaaran si fiican loo koraysa aad u qurux badan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay sida wanaagsan ee loo soo dhaweeyay dad badan oo aftahanaa iyo taariikhda degmada ka sheekeeyay ayaa naga hormaray anagana aad ayaan ugu faraxsanahay waana baalkan xala fursad wanaagsan inkastoo marar badan imid laakiin sida cabdi qeybkii sheegay markaan ka soo leexanay kulid jaalisiyaad oo iyo wasaaraha baar shaqeysay oo meeshii uu la gaari lahayd ana kala afgooda u socda meeshii fogaatay warkaas iyo dhismaha ka socda laamiga haddii waxa weeye degmadan haddii caraboro waa in laba degmo laga dhigaa hal degmo waa ka ballaaran tahay in laba degmo laga dhigay u qorantaa sida uu sheegay wasiir duraan askar iyo marcoodkaas iyo usha macallimiinta aniga dadka degmada hodan aan ku koray xaafadda taleex waxaas loo soo dooran jiray maantana haddii dhismaheeda iyo sida u qurux badan tahay investment lagu sameeyey waa arrin maxaa la dhahay aad iyo aad u qurux badan weyn aniga markaan dhiganayno kuliyadda injineeriyada dhulkan ciidan baa degan doodaha ugu badan waxay ahayd dhulkan ciidanka laga raro si magaalada ay dhinaca waqooyi ay ugu fiddo qadiyaddaas aniga weli waa qabaa dhulkan ciidanka haddii dowladda iskale laakiin si in loo maareeyo oo webiga xaggaa laga mariyo ciidanka dhulkan dadweynaha loo qaybiyo howlaha guud baan ka shaqayn jiray haddaan dowladda dasi burbur lahayn mashruucaas waa hirgeli lahaa laakiin haddii annaga baashii iska burburinay haddana waxaa weeye dhismaha waa aragnay jiingaduhu badan yahay dadka waa cabsanayaan waa dhul dowlo laakiin xal mustaqbal ah ayuu dhulkan looga baahan yahay dadkan xamaro sii badanaya aniga waxaan la yaabay fonfoorka aniga waxaan ka baxay 83 xamar waxaan ahay 3,000 ku dhawaad arday maanta xamar waxaan gashay gacanka fonfoorka 26 kun oo arday dadka meeqay kordheen waxaa u badan bay kordheen dhulka waa yar yahay waxaa la rabaa dowladda inay ka fikirto dadkan sidii baalka maxaa la dhulalkan iska ballaaran in arrintaas waxaa weeye waa soo jeedinayaa dadka deegaanadan degana Dayniile ilaa dhulkaasna waxaa la rabaa kambeynkaas inay qaadaan waa laakiin waa doorashada kadib hadda maaha